السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أروريسو بنداود الكسور وهذا وركي قدام بي عالم كقضبة أنو يجد دوننا حكمدا حبة جوجنتي وترامب دحدين قاعد نعيدا دلالك هندية يا باكستان وعقب بدا كتشاغني كدي مركي أي لبدا ديناعو والركلة دوان إسلاف سنة تانية وحي كدم بي مركي وترامب كله واقعي حبة جوجنتا لبدا ديناع ترامب waxa uu ku dhawaaqi doonaa inuu aqoonsaday dawlad ay Falastiin leedahay talaabadaas iyo waxa ay ka dhigan tahay safarkiisa gobolka bariga dhexe waxa ay ku soo kordhin doontaa ayaan eegi doonaa hadii Allah wadada u raali ka hado Suudaanna waxa ay bilowday kooxda xukunka militariga ee dalkaasi in xiriir la sameeyaan Kuuriyada Waqooyi xilli la filayeen labada dhinac ay gaaraan heshiis amni oo ku saabsan sidii dalkaasi Suudaan ay u taageeri lahaayeen kooxda ciidanka militariga dalkaasi Waqooyi Korea Franciscuna waxa uu ku dhawaaqay inuu cunaqabateen ku soo rogi doono dalka Ruushka hadii uu joojin waayo duulaanka uu ku yahay dalka Ukraine xilli Mareykanku ku hawlan yahay sidii loo dhameyn lahaa colaadda ka taagan Ukraine oo madaxa la gashay sanadkii afraad qodobada ay kuwa kale ayaan eegi doonaa hadii Allah wadale u raali ka hado ayna ku bilaabanay sida ay warisay jaridada la yiraahdo warbaahinta Jerusalem Post madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa lagu wadaa inuu aqoonsi siiyo dawlad ay dadka reer Falastiin yeeshaan kadib markii uu muddo dheer Mareykanku hortaagnaa in la aqoonsado maamulka Falastiin waxaana la filayaa in safarka madaxweynaha Mareykanka Donald J Trump uu ku marayo gobolka bariga dhexe gaar ahaan wadamada Qatar Imaaraadka Carabta iyo Sacuudiga inay foolaadu noqoto in la aqoonsado dawlad ay Falastiin leedahay taas oo ka dhana aragti kasta oo Israa'iil hore u qabtay talaabadan oo la sugayo inuu Trump ku dhawaaqo marka uu yimaado bariga dhexe gaar ahaan Sacuudiga ayaa noqon doonta mid si weyn wax uga bedeli doonta xaalka gobolka sababna noqon karta inuu yeesho waji kale dagaalka gobolka iyo guud ahaan baarinta Falastiin iyadoo ay wadamada Carabta muddo dheer dalbanayeen in loo baahan yahay helidda xal laba dawladood oo siman oo Falastiin iyo Israa'iil oo laga helo marinka Gaza iyo dhulka daanta galbeed ee Falastiin ahna ay dadaal badan gelinayaan wadamada Carabtu sidii meel mar looga dhigi lahaa ajandahooda la xiriira in la helo dawlad ay Falastiin leedahay madaxweynaha maamulka Falastiin Mahmoud Abbas oo mahadsan ayaana la filayaa inuu taga Riyaad halkaas oo kula yeelan doono madaxweynaha Mareykanka Donald Trump way ka wada hadli doonaan sida taabagal uu noqonayo qorshaha Trump ee ku wajahan dawladda caalamku aqoonsan yahay oo ah laba dawladood oo siman oo Israa'iil iyo waliba Falastiin محمد بن سلمان دحل سوغاها بقرطويدا سعودي عربية ayaa door lixaad la ka qaadanaya sidii meel mar looga dhigi lahaa aragtida la xiriirta in la helo laba dawladood oo siman oo Falastiin iyo Israa'iil waana qorshaha ugu ballaaran ee Carabtu ay sida weyn dadaalka u galinaysay muddooyinkii la soo dhaafay Trump oo la filayo shirka wadamada khaliijka ee ka dhacaya magaalada Jidda ee boqortooyada Saudi Carabiga inuu hadalkan kaga dhawaaqo waxa kale oo go'aanada ay saameyn ku yeelan doonaan colaadda gobolka bariga dhexe oo Mareykanku ka mid ahaa dulaalada ugu waaweyn Trump waxa uu dhawaan sheegay inuu shaacin doono waraad weyn oo ku wajahan siyaasadda gobolka bariga dhexe gaar ahaan marka uu booqdo wadamada qaniga ku asaliida ee Sacuudiga Imaaraadka iyo Qatar waxaana la aaminsan yahay in go'aankan uu yahay mid Falastiin dawlad loogu aqoonsanayo arrintu waxay ku soo beegmaysaa xilli uu banaanka u soo baxay khilaaf u dhaxeeya Benjamin Netanyahu iyo saaxiibkiisii ay aadka isku taageeri jireen ee Donald J Trump kuwaas oo isku seegay arrimaha ay ka mid yihiin dagaalka Israa'iil ee ka wada marinka Gaza oo ay weheliso sidoo kale in Trump uu doonayo in hadda dagaalkaasi la soo afjaro maadaama ay ka dhalanayaan dambiyo ka dhana xuquuqda aadanaha lana dilayo in ka badan 50,000 oo Falastiiniyiin wadamada Carabta ayaa dadaalkooda ugu badan isugu geenaya sidii meel mar looga dhigi lahaa aragtidooda la xiriirta in la soo afjaro dagaalka marinka Gaza sidaas oo kale Trump ayaa maalmo ka hor inta uu socdaan in gobolkan degan ee bariga dhexe waxa uu go'aansaday gabi ahaanba uu heshiis la gaaro kooxda Xuutiga ee dalkaas Yemen isla markaana uu sheegay inay yihiin koox awood badan oo aan loo babacdhigi karin in Mareykanku uu aqoonsado maamul ay Falastiin leedahay waa talaabo barbilow u noqon karta kala dhaqaaq ku yimaada Mareykanka iyo Israa'iil maadaama ay Tel Aviv marnaba ogolaan doonin arrimaha la xiriira in la sameeyo dawlad ka hirgasha Ramallah iyo Gaza iyadoo ujeedada koobaad uu yahay sida ay dhulkaasi u qaadan lahayd oo ugu dari lahayd deegaanadii ay hore u boobtay laakiin go'aanka wadamada Carabta hadii uu meel mar noqdo waxay uga dhigan tahay inay gaareen guul weyn oo diblomaasiyadeed aan Trump uu doonayo in wadamada Carabta gaar ahaan Saudi Carabiya uga bedesho arrinta dawlad caalamku aqoonsan yahay oo Falastiin ama laba dawladood oo siman oo Falastiin iyo Israa'iil in ay Sacuudigu aqbalaan in xiriir la yeeshaan dhinaca iyo waliba sidoo kale maamulka Tel Aviv Trump ayaa sidoo kale noqonaya nin ka laabtay go'aankii hore u soo jeediyay ahaa in la barakiciyo dadka ku dhaqan Gaza ana uu doonayay in la geeyo dhinaca iyo dalalka Masar iyo Urdun saxarahooda balse si weyn ayaa looga hor yimid go'aankaas oo ay gaashaanka u duraneen wadamada ururka Islaamka gaar ahaan kan jaamacadda Carabta ahna Trump hadii uu go'aankan cusub uu si rasmi u qaato ay ka dhigan tahay in la gaaray hadaf weyn oo dhameystiran oo in la helo dawlad caalamku aqoonsan yahay oo Falastiin
dhinaca Pakistan iyo Hindiya haddii aynu eegnana oo maalmihii la soo dhaafay xiisadoodu cirka isku shareertay dagaal rasmiyana oo duqeymo badan ay dhinacyadu isdhaafsadeen laba maalmood oo colaad xooggan ay ka dhex taagneyd labada dal ee dariska ah ee Hindiya iyo Pakistan galinkii hore ee shalay ayaa lagu guuleystay in la soo afjaro xiisada labada dhinac oo xabad joojin buuxda ay dhex dhigaan dhinaca Mareykanka dadaal ay dowladda Mareykanka garwadeenka ahayd oo labada dhinac u kala dab qaaday ayaa ugu dambeyn sabab u noqday in dhinacyadu ay joojiyaan dagaalka ay wadeen ayna ogolaadaan inay ku soo laabtaan miiska wada xaajoodyada oo ay diyaar u yihiin inay ka wada hadlaan dhammaan dhacdooyinkii hore u dhacay arrinka ayaa yimid saacada markii ay dowladda Pakistan weerar ku ekeysay saldhigyada ciidanka dalka Hindiya kuwaas oo la gaarsiiyay khasaare aad u ballaaran laakiin markii xabad joojinta labada dhinac ay ku dhawaaqeen kadib dhinaca Pakistan ayaa qaaday weerar ay u adeegsatay diyaarado isla markaana lagu bartilmaameedsaday goobo muhiim oo ka mid ah saldhigyada militariga ee dalkaasi Hindiya waxay sheegtay warbaahinta dhanka Hindiya in weerarkaas ay Pakistan qaaday uu ahaa mid xabad joojinta lagu jabinaya Islamabad ayaa si weyn ugu gacan sareysay dagaaladii dhacay waxayna duqeymo ka geysatay gudaha Yemen iyadoo ku gudubtay nidaamka difaaca hawada ee Ruushku u leeyahay ee la yiraahdo S-400 kaas oo muujisay mar kale fadeexadii ay horay dagaalka isku dhacay ugu horeeyay ee Pakistan iyo Hindiya dhexmar ay uga kulantay dhinaca Faransiiska Moscow ayaa hadda iyana ku soo biirtay wadamada sida weyn u fadeexoobay marka laga hadlayo isku dhicii saddexdii maalin ee la soo dhaafay dhexmaray dhinacyada Hindiya iyo Pakistan balaayiin dollar ayaana la aaminsan yahay inay durba khasaareen shirkadaha reer galbeedka oo ay foolaad u tahay dhinaca Faransiiska oo diyaaradeeda la yaraafale ay gabi ahaanba noqotay mid dunida oo dhan howlgab laga cabsi qaba in laga dhigo sabab la xiriirta in si fudud ay u soo daadiyeen nidaamka difaaca hawada ee dalkaasi Pakistan diyaaradda la yiraahdo Rafaalka ee Pakistan ayaa si toos ah waxa ay u soo riday markii ay isku dayeen inay weerar ka geystaan gudaha dalkaasi Pakistan waxaana hadda muuqata in sancada dhinaca reer galbeedka iyo Faransiiska ee Ruushka ka timid ay noqotay mid fagaaraha dagaalka wax badan ka tarweeday laakiin ay si weyn u guuleysatay midda ka imaanaysa dhinaca iyo Shiinaha oo si weyn u qalabeeyay ciidanka militariga ee dalkaasi Pakistan New Delhi waxay ku doodaysaa in diyaaradaha Pakistan ay burburiyeen goobo cibaado iyo meelo kale oo ay dad shacab ku sugnaayeen balse xogtu waxay tibaaxaysaa in weerarada Pakistan ay hayeen kuwa si toos ah ugu wajahan xarumaha militariga dagaalkan oo ahaa kii ugu weynaa ee dhexmara dhinacyada labada dal ee dariska waxa hadda uu muuqanaya in gabi ahaanba uu mar kale xaaladda gobolka saameyn dib ugu celin doono reer galbeedku waxay la kulmeen wajigabax ballaaran maadaama ay si fudud loo riday hubkii ay ku faani jireen gaar ahaan diyaaradaha Faransiisku soo saaray iyadoo lagu burburiyay diyaaradda la yiraahdo J-10 iyo gantaalka la yiraahdo B-15 oo labaduba kuwa ay soo saartay dowladda Shiinaha oo ay si weyn uga macaashay kana heshay sumcad aad u ballaaran tani markii isku dhacan uu bilowday Pakistan ayaa noqotay dalkii ugu horeeyay ee Shiinuhu ka iibiyo hubkiisan horumarsan kaas oo hadda si degdeg uga gudbay arrimihii tijaabada ee dagaalka kadib markii wacdara ka dhigay gudaha dalka Hindiya aana muuqata hadda Beijing oo horay dhaqaalaha u hogaaminaysay hadda sancada hubkana ay foolaadu noqonayso wararka ayaa sheegaya in duqeymihii ugu dambeeyay ee wakaaladda wararka FBI ay tabisay ee ay sheegayeen Hindiya ay Pakistan mar kale duqeysay oo nabadii labada dhinac ee dhaqangalka ahayd ay ku jabisay lagu beegsaday goobo military ugu dambeyntiina dowladda Suudaan ayaa lagu waramayaa in xiriir la sameysay dowladda Kuuriyada Waqooyi taas oo ay ka wada shaqeynayaan dhinacyada difaaca iyo ammaanka kadib markii ay militariga dalkaasi Suudaan ee hogaamiye Cabdulfataax al-Burhaan sida muuqata ay u baahdeen iskaashi dheeraad oo dhinaca ammaanka iyo difaaca oo ay la galayaan Kuuriyada Waqooyi waxaana ay doonaysaa xukuumadda Burhaan uu hogaamiye saraakiisha inay helaan hub tiro badan oo ay u adeegsadaan dagaalada dalkaasi ka socda ee u dhaxeeya Burhaan iyo Maxamed Xamdaan Dagaalo dowladda dunida aqoonsan tahay dalka Suudaan ayaa dadaal ugu jirtay inay hesho taageero dibadeed oo ballaaran gaar ahaan wadamada aan ka ahayn dhinaca reer galbeedka waxayna doonaysaa inay hesho hub tiro beel oo ay dagaalada hadda socda ay ku sii dhaqaajiso isku xiranka dhinacyada Suudaan iyo Kuuriyada Waqooyi waxa la aaminsan yahay inay tahay fikrad ka soo maaxatay ama ka timid dhinaca Ruushka oo labada dal ballaa saaxiib dhow sidoo kalena doonaya inuu sii ballaariyo saameynta Kuuriyada Waqooyi iyo waliba sidoo kale Ruushka oo iswata ay ku leeyihiin Afrika Moscow ayaa si weyn ugu dadaalaysa in Kuuriyada Waqooyi uu ka saaro godoonka ay dunida kaga jirto isagoo taas oo arka mid dhabar jab ah wadamada reer galbeedka gaar ahaan Mareykanka oo si weyn uga dagaalamaya gabi ahaanba oo xiriir la sameeyo Pyongyang oo ah dowlad shuuci ay Washington u aragto in diidan tahay danaheeda gobolka gaar ahaan inay halis ku tahay wadamada Mareykanka saaxiibka la ee Kuuriyada Koonfureed iyo waliba Japan Suudaanna waxay xiriirka cusub uga faa'iideysan doontaa inay hesho hub casri ah oo ay kula dagaasho jamhadda RSF ay Maxamed Xamdaan Dagaalo oo hogaamiye ay dagaalamayaan Cabdulfataax Burhaan oo hogaaminaya ciidanka militariga ee dalkaasi Suudaan waxaana muuqata in hadda Suudaan colaadaha kala duwan ee dhinacyada